وروحان قوستي مركي ليري أمل بالعق أرورنا يا شيخ أمل يا علماء كينيا وروحان أنو قوستي مركي لي علماء بودلان أوردن دقالة يقريا وروحان قوستي مركي ليري كيني كشناد العقب أرورنا يا وروحان قوستي كوي أول بدت كلين شري العقد هذا بدت كلقول لين شري يقول بتشوق هم مركي ليري قصنا ضي أرورنا يا أكوني فريا العقب على أرورنا يا أيان أنو قوستي بقى وايو dadka dhibaatada dadkan ku haya waa dad dibadda kaga imanaya waxa weeyaan maanta macquul maaha in culimo awdiintii iyo dadkii diinta yaqaanay ay yiraahdaan dhulbahanta waa la dulmiyaya aan ka gaadhno weligeed dhulbahanta daarood waxba uma qaban cidda wax qabatay ee dhulbahanta is garanayaan waxa weeyaan waa reer Soomaali inteeda kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland meel joogtaba waxaan kala salaamayaa dhamaanba ummadda muslimiinta meel joogto oo dhan dadka Soomaalida ah ee magaca Soomaali ku abtirsada dhamaantood waan salaamayaa halkan waxaan ka soo daynayaa caawa baaq nabadgeliyo oo ku saabsan gobolka Sool iyo guud ahaanba Somaliland waxaynu ognahay shidada Sool ka taagan ee laga soo raray ama laga soo guuriyay meel fog taasoo ay hogaaminayaan dad wax magarata ah ayadoo dhibaataduna ay ku dhacayso dadka deegaanka u dhashay ee danyarta ah ee muwaadiniinta ah ay ku dhacayso ma garanaysaa dhibaatadu waxaynu ognahay dagaalka kan hadeer ka sidan gobolka Sool cidda hogaaminaysa ee bilowday inay tahay cidda magacan sidata garaad iyo waxgarad iyo aqoon-yahan ay u naqaanay laakiin hadeer aad moodayso inay yihiin kuwo sharwadayaala marka garaad la leeyahay garaad waa halka wax lagu garto weeyaan kelmadda garaad ee uu garaad ka yimi macnaheedu waa garaad buu u leeyahay weeyaan macnaha caaqila waa caqli buu leeyahay weeyaan wax garadna wax buu garanayaa weeyaan dadka magacaasita waxa weeyaan Soomaalida dhamaanba Soomaalida waxay kaga jiraan meel adag bay kaga jiraan halka uu wadnuhu jirka ka metelo ayay dadka noocaasi ka metelaan ummadda marnaba qofka wax garadka ahi ma soo jeediyo ama kuma taliyo hal dhinto hal qaxo hal baabao waxaynu markaa arkaynaa hadeerto dad garaad laawayaal ah oo laascaanood u dhashay shidada hadeer taagan laascaanood inay dabada ka wadana hogaaminayaan waxaan soo jeedinaynaa baaq haddaanu nahay ummadii ka damqanaysay in alla intay waxgarada waxaa ku waajiba in halkaa qayla dheer lagu tilmaamo oo ah nabadgelyo cidda ay caleentoodu caddaato ee baxaysa ee dhimanaysa iyada dee marnaba looma taagili karayo ummadda reer Sool dulmi baa ku dhacay oo dhagar baa ku dhacday oo qax baa ku dhacay oo dhimashaa ku dhacday oo waxa loo xambaariyay wax aanay qaadi karin oo waxa la gaarsiinayaa lagu wadaa hadda meel aanay ka soo noqon karin oo dhibkan uu ka sii weynaado intay goor tahay qofkii dareen leh ee damqanaya goobtii uu sahayn karayay maaha waxaan soo jeedinayaa in dadka dhalinyarada ah ee lagu khamaarayo ee sida xaabadu dabka u cunto la doonayo inay u dhintaan in laga waantoobo haddii kuwa garaad laawayaasha ah ee halkaa dagaalkan bilaabay ay garan waayaan taa oo ay u cuntami weydo oo way u shilis tahay oo way u buuran tahay ay garan waayaan waxaan markaa baraarujinayaa dadka reer Sool reer Laascaanood
la doonayo in lagu khamaaro waayo 3 ismi amika halka talada loo dhiibay durba waxaynu arkaynaa inay akooma samaysteen durba waxaynu arkaynaa inay qasnada samaysteen durba waxaynu arkaynaa inay u qaylinayaan oo u habar wacanayaan kuwa aan waxba u taraynin lacag baa meesha laga dhalinaya oo laga sameynaya dhalinyarada reer Sooley dhalinyarada reer Dhulbahantaay inta wax garadka ah ay ka jooga oo waxa way marun baa wax la fahmaaye wax fahma oo dadkan lagu ciyaarayo qabta qof waliba maanta wax buu garanayaa casri baynu marayna 2023 baynu marayna maanta ma marayno goor qaarna shaqaystaan qaarna dhintaan in laga taliyo talada hadda halka ka muuqata inay qaarna dhintaan qaarna kiishada buuxsadaan waxaan maqlayaa culimo meel walba ka hadlaysa iyo dad wax garad sheeganayo meel walba ka hadlaya kuwa aanay gacantoodu soo gaarin iyo kuwa ay gacantoodu soo gaadhaba ku baaqaya in la dagaalamo oo ay reer Laascaanood dagaalamaan oo ay Dhulbahanta dagaalamaan oo waxa loo sheeganayaa inay isxigaan waxa loo sheeganayaa magac daarood goormuu weligii Dhulbahanta wuxuu qabtay ilmaade reer Dhulbahantow reer Soolow goormaa weligeed adduunyadu intay jirtay Dhulbahanta daarood wuxuu qabtay ninka Kismaayo jooga ee wadaadka sheeganaya ee dhaqaalaha ururinaya ka Puntland jooga ka Kenya shanaad jooga ee ururinaya dhaqaalaha magacalka reer Laascaanood baa mise waxa weeyaan waa nacabka reer Laascaanood ninka gacalka reer Laascaanood waa ka qaylinaya waa kala war dagaalka joojiya waa kala warkaalaya gogol baa la dhigay yogoori baa la dhigaya waa ilmaadeerayaal wixii khaldan haday wax khaldan yihiin halkaas la isugu sheegaya annaka idin la safanayna annaka idin raacayna intay goor tahay dagaalka hal la joojiyo oo hal la qaato nabadgelyada waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo waxaan ku baaqaynaa inaan xisaabtanno waxaan ku baaqaynaa haday wax inaga xumaadeen in la saxo waxaan ku baaqaynaa reer Soomaaliland dhamaanba hadaan nahay waa sool mooyaane inta kale wixii xumaaday inaynu wax ka qabanno ayaynu hadeer u diyaarnay annaka dhagaxa idin la tuurayna annaka idin la mudaharaadayna annaka wax walba idin la qabanayna waa hadii aad gar yeelataan reer Soolow laakiin dadka xaabada lagu shidayo bilaa calayka laga daayo halka ay hadeer maraysa ayaa meel xun ah yaan la sii wadin halka hadii loo sii dhaafo waxa looga dhacaa waxa weeyaan waa qurun waxa la yiraahdaa xabaal qode wuxuu u dhaadhacaa waa qurun halka ay hadeer taagan tahay waxa looga sii dhaqaaqa inay qurun tahay baan u aragnaa anagu Soomaaliyeenu waxay ku maamahdaa waxa la yiri ilaahayow haddaad kolba tala xumo nagu ridayso oo kollayba mid tala xumi uu anaga ahaanayo ilaahayow odayga nooga dubaa la yiraahdaa odaygu waxa weey madaxweynihii reerka weeyaan haddii inanku tala xumoodo ama inantu tala xumooto ama magaranaysa islaantu tala xumooto oo odaygu bad qabo odayga ayaa hagaajiyo oo qabta ilaahayow haday tala xumo nagu dhacayso odayga nooga dubaa la yiraahdaa ilaahayow hadii ay nagu dhacayso cirweynaani oo mid cirweynini dhexdayada ahaanayana ilaahayow islaanta nooga dubaa la yiraahdaa islaantu sahaydii iyo agabkii reerkay haysa haday cirweyn tahay de reerkii uu banjaraya ilaahayow hadii ay kollayba cirweynaan noogu dhacaysana ilaahayow islaanta nooga dubaa la yiraahdaa ilaahayow haday fool xumo nagu dhacayso ilaahayow inanta looga dubaa la yiraahdaa inantu muraayadii weeyaan reerka oo la isku daawadaa reerkaas habluu leeyahay hablo qurux badan buu leeyahay inantu muraayada reerka weeyaan ilaahayow haday fool xumo nagu dhacaysana ilaahayow inanta nooga dubaa la yiraahdaa waxaan uga socdaa reer Sool waxaad moodaa in tala xumadii alla kuma ridee oo uga ducaynaynaaye in tala xumadii garaadadii kaga dhacday ayaa muuqanaysa ilaahayow haday tala xumo dhacayso Dhulbahanta tala xumo ku dhacayso ilaahayow garaadada iyo cuqaasha iyo waxgaradka uga du ilaahayow aqoon-yahanada uga du ilaahayow ganacsatada uga du waa duco weyn wax lagu ducaysto waxa ugu muhiimsan ilaahayow madaxda tala xumaha nagaga ridin waa duco sababtoo dhalinyarada iyo magaranaysa dadka soo koraya haday tala xumoodaan dadka waaweyn odayaasha ayaa qabta ninka maanta horboodaya ee ina garaad cali iyo inta la midka ah ee maalintu Laascaanood soo galay sidii intuu dal soo dagaalamay 10 sano dagaalamayay calan yaro buluug intuu soo qaatay ku dhawaaqay dagaal oo dagaal iclaamiyay ilaahayow
ilaahay talaxumo ku socdaay reer laascaanood ka qabo inta reer laascaanood ee talaxumayaasha ah ilaahay ka qaba ayaanu leenahay waxaan ku baaqaynaa nabad waxaanu ku hadlaynaa waa nabadoon waxaanu leenahay waryaale qoriga hal la dhigo war way sii xumaanaysaa war ciidankan Somaliland ma jabayo war 20 sano hadduu dagaalku soconayo ciidanka Somaliland wali mu dagaalamin hal habeen ma dagaalamin ina gaala jaamaciga garaadada halka jooga ciidanka ay ururiyaan ay 20 sano ka soo shaqeynayeen laba maalmood oo kaliya ayay weerar qaadeen waxa dhacay baynu ognahay waxba inooma kala qarsoona halkan maanta ay maraysaa waa halkii lagu miisan jiray waxna lagu kala garan jiray baaqaasaan soo jeedinaya waxaan kaloo iyagana u digaya dadka Soomaalida ah darafyada caalamka meel kasta ha joogaana jooga colaada laascaanood ku lug leh dabka hurinaya waxaan leenahay war ilaahay ka baqa war dhulbahanta Somaliland lagama soo cikarayo war kaligood meel isku bixin maayaan war daarood ma yaqaanaan war Soomaali kale ma yaqaanaan war reer Somaliland cid aan hayn dhulbahanta ma yaqaano meel aan reer Somaliland lahayna wallahi kuma noolaan karo dhulbahanta meel aan reer Somaliland joogin dhulbahanta kuma noolaan karo ninka maanta leh malayga ama kalluunka ayaan badda ka soo saaraya ee bariga ha ku noolaado waxa la mid ah ninka yiri dhulbahante Somaliland ha ka go'o waan ku celinaya ninka malayga ama kalluunka badda ku jira yiri waan soo saaraya oo dibadda iyo bariga ha ku noolaado waxa la mid ah ninka yiri dhulbahante reer Somaliland ayaan ka soocaya oo dhulbahanta meel gaara geynaya oo meel kala laga xukumaya wuxuu la mid yahay ninka yiri malayga badda ku jira la soo saaro bariga ku noolaado war macquul maaha mana suurta galayso waxa aqliga gali karayana maaha ilmihii labada dumar isku qabteen Umar ibn Khattab Sulaymi isku qabsadeen oo mid walba yiri maxaad ku cadaynaysaa mid walba tiri anaa dhalay uu ku yiri markaa maxaa hadda yeelaysan ay mid tiri noo kala go ilmaha noo kala go seef noogu kala jar midna qaarka hore ha qaadato midna qaarka dambe ha qaadato maanta waxa la mid ah ninka yiri dhulbahante iyo Somaliland inta kale kala goynaya wuxuu la mid yahay ninka yiri ama gabadhii tiri ilmaha noo kala go oo mid kaayaba badh bay qaadanaysaa ayay la mid war dhulbahanta kama go'i karayo Somaliland war dadkani dad la kala sooci karaya maaha tuuladay wada degaan oo ceelkay wada cabaan oo daaqay wada cabaan oo daaqay wada cunaan oo magaalooyinkay wada yaalaan oo dhismayaashooda isku wada xiga meesha lagu kala soociyaa waa aakhira miya ma aakhira meesha lagu kala soocaya anigu ma garanayo iftiinkan wallahi lama kala sooci karayo oo dhulbahanta gaar looma sooci karayo haday wax kastaaba dhacaan haday 100 sano la dagaalami karayo arrinkan suurta geliya marnaba ma war waxaan quustay markii la yiri umal baa lacag ururinaya Sheikh Umal iyo culimadii Kenya war waxaan anigu quustay markii la yiri culimadii Puntland oo dhan dhaqaalay gurayaan war waxaan quustay markii la yiri kilinka shanaad lacag buu ururinaya war waxaan quustay kuwii awalba dadka leen jiray lacagtooda dadka lagu leen jiray qurba jooga markii la yiri qasnaday ururinayaan akoonay furayaan lacag baa la ururinaya ayaan anigu quustayba waayo dadka dhibaatada dadkan ku haya waa dad dibadda kaga imanaya waxa weeyaan maanta macquul maaha in culimo awdiintii iyo dadkii diinta yaqaanay ay yiraahdaan dhulbahanta waa la dulmiyaya aan ka gaadhno waligeed dhulbahanta daarood waxba uma qaban cidda wax qabatay ee dhulbahanta isgaranayaan waxa weeyaan waa reer Soomaali inteeda kale ilaahay ha laga boqo waxaan soo jeedinaynaa gogosha nabadeed ee amka Yogori la dhigay ha laga qayb qaato ninkii wax tabanaya kaalay ninkii wax tabanaya annaga waxna tus haddaad kaliga guri madow wax ku aragtay ha lagula arko aan isla aragno war walaalayaal dhalinyarada dabka lagu shidayo ee dhimanaysa hal badbaadiyo dhalinyaradana waxaan leenahay war maanta casri baa la marayaa idinkuma waxbaydaan garanaynin ninka kula dagaalan kaalay adigu dagaalan dheh ninka qasnada akoonada furtay akoonada dadka loo furtay waxa weeye waa dadka dhalinyarada weeyaan dadka dhalinyarada ah ee dhulbahante waxaan ku celcelinaynaa dadka dhalinyarada ah ee dhulbahante ee dagaalamaysa ee dhimanaysa waar isweydii maxaad ku socotaa maxaad ka socotaa maxaad ku dhimanaysaa maxaad ku dagaalamaysaa ninka ku dagaal gelinaya ma saxba ma daacadba war waxa weeye ilaahay ha laga boqo waxaan ku soo gabagabeynayaa
ilaahay aan ka baqno dhammaanteed wixii khalada ee jira ha la isla arko ha la isugu yimaado ha la isla soxo waana islaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu